miyaad rumaysan kartaa in ciyaaryahankii mar la oran jiray xirfadiisu way dhamaatay uu maanta noqday boqorka kubadda cagta adduunka isla markaana ku guuleystay Ballon d'Or? Kusoo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkan waxaan ku eegaynaa safarkii cajiibka ahaa ee Ousmane Dembélé laga bilaabo dhaawacyadii soo noqnoqday, dhaleecayntii adkayd iyo caqabadihii uu la kulmay ilaa ugu dambeyntii ka noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican dunida kuna guuleystay abaalmarinta ugu weyn ee kubadda cagta. Hase yeeshee, is-xasuusin ha ilaabin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aanu sii gudgalno muuqaalkeena. Bilowgii safarka Dembélé ee kooxda Rennes. Ousmane Dembélé wuxuu xirfadiisa kubadda cagta ka soo bilaabay akademiyada kooxda Rennes ee dalka Faransiiska, halkaas oo uu si degdeg ah uga dhex iftiimay ciyaartoydii ay isku da'da ahaayeen. Xabaarihiisa cajiibka ah iyo awoodiisa uu labada lugood si isku mid ah ugu ciyaari karo kubadda ayaa ka dhigtay ciyaaryahan ay daafacyadu ka baqaan. Xilli ciyaareedkii 2015-2016 wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u sareeya, isagoo dhaliyay goolal muhiim ah isla markaana sameeyay caawino badan. Bandhigaas ayaa soo jiitay indhaha kooxaha ugu waaweyn ee Yurub. Wuxuu noqday aas-aaskii safarkiisii xirfadeed ee uu ku higsanayay inuu maalin uun ka mid noqdo ciyaartoyda ugu fiican adduunka. Wacdarihii Borussia Dortmund iyo koritaankii magaciisa. Markii uu ku biiray kooxda Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé wuxuu si degdeg ah u cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah hibooyinka ugu waaweyn ee kubadda cagta. Maxaa yeelay Dembélé waxa uu horyaalka Bundesliga ku soo bandhigay xirfad, xabaare iyo hal abuur weerar oo soo jiitay indhaha Yurub. Isaga iyo Pierre-Emerick Aubameyang waxay sameeyeen iskaashi weerar oo aad u xooggan, iyagoo dhibaato weyn ku noqday daafacyada kooxaha ay la kulmaan. Inkastoo uu hal ciyaareed oo kaliya joogay kooxda Dortmund, haddana wuxuu ku guuleystay DFB Pokal, wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu caawinta badnaa kooxda. Bandhigyadiisa cajiibka ahaa ayaa sare u qaaday sumcadiisa, waxayna u gogol xaareen tallaabadii xigtay ee xirfadiisa. U guuritaankii Barcelona iyo imtixaankii dhaawacyada. Ku biiristiisii Barcelona sanadkii 2017 waxay ahayd tallaabo weyn oo xirfadiisa ah, balse wuxuu si degdeg ah ula kulmay dhaawacyo soo noqnoqday oo caqabad ku noqday horumarkiisa. Muddo dhowr sano ah ayuu u dhexeeyay qolka daaweynta iyo garoonka, taasoo dhalisay dhaleecayn iyo shaki laga muujiyay inuu gaari karo heerkii laga filayay. Si kastaba ha ahaatee, Dembélé ma quusan. Wuxuu muujiyay adkaysi iyo dulqaad, isagoo bedelay habnololeedkiisa iyo diyaarintiisa jir ahaan. Inkastoo ay jireen dhaleecayn badan oo uga timid saxaafadda iyo taageerayaasha, haddana wuxuu sii watay dadaalkiisa, isagoo rumaysnaa in uu maalin uun gaari doono heerka ugu sareeya ee kubadda cagta. Isbeddelkii maskaxeed iyo dib u soo noqoshadiisa. Isbeddelkii ugu weynaa ee safarka Ousmane Dembélé wuxuu yimid markii uu fahmay in guusha heerka sare ay u baahan tahay edbin iyo daryeel ka baxsan garoonka. Wuxuu wax ka beddel ku sameeyay cuntadiisa, hurdadiisa iyo habka uu u tababarto, taas oo si weyn u yaraysay dhaawacyadii soo noqnoqday. Kalsoonidii uu ka helay tababarayaashiisa, gaar ahaan Xavi Hernandez, ayaa ka caawiyay inuu dib u helo qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa. Wuxuu noqday ciyaaryahan bisil oo aan ku tiirsanayn xawaare kaliya, balse si fiican u fahma goorta uu baasayo kubadda, goorta uu weerarayo iyo sida uu ciyaarta u maamulo. Ku biiristii PSG iyo bilow cusub. Ku biiristiisii Paris Saint-Germain waxay Dembélé u ahayd bilow cusub oo uu dib ugu muujiyo tayadiisa. Markii uu yimid kooxda, wuxuu si degdeg ah u noqday tiirka ugu muhiimsan ee weerarka, isagoo door weyn ka qaatay abuurista fursado iyo hogaaminta ciyaarta. Ma ahan oo kaliya ciyaaryahan garabka ka ciyaara, balse wuxuu noqday maskaxda weerarka ee kooxda. Qaab ciyaareedkiisa joogtada ah iyo saameyntiisa kulamada waaweyn ayaa sare u qaaday sumcadiisa, waxayna ka dhigtay mid si dhab ah loogu tixgeliyo tartanka Ballon d'Or. Xilli ciyaareedkii isbeddelka keenay. Xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee Dembélé wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed joogto ah oo heer sare ah, isagoo door weyn ka qaatay guulaha PSG. Horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska ayuu ka dhaliyay goolal muhiim ah, wuxuuna sameeyay caawino badan oo kooxda ka caawiyay inay guulo isdaba joog ah
gaarto kulmadii ugu adkaa ee horyaalka. Marar badan wuxuu ahaa ciyaaryahankii go'aaminayay natiijada. Joogteynta bandhigyadiisa iyo saameyntiisa garoonka ayaa meesha ka saartay shakigii laga qabay, waxayna ka dhigtay mid si dhab ah ugu tartama abaalmarinta Ballon d'Or. Wacdarihii Champions League iyo haweenadii sixirka ahaa. Tartanka UEFA Champions League ayaa noqday goobtii uu Dembele si buuxda ugu cadeeyay heerkiisa. Wuxuu door muhiim ah ka qaatay kulmadii wareegyada bugbaxa, isagoo goolal iyo caawino muhiim ah ka geystay guulihii kooxdiisa. Kulmadii ugu adkaa wuxuu mar walba ahaa ciyaaryahanka wax ka bedela, isagoo saameyn weyn ku yeeshay natiijooyinka. Bandhigyadaas cajiibka ahaa ee tartanka ayaa si weyn u xoojiyay fursadiisa ah ku guuleysiga Ballon d'Or, maadaama uu iftiimay xilliyadii ugu muhiimsanaa ee xilli ciyaareedka. Doorkii xulka qaranka Faransiiska marka laga soo tago guulihii uu la gaaray kooxdiisa, Dembele wuxuu sidoo kale door muhiim ah ka qaatay xulka qaranka Faransiiska. Bandhigyadiisa joogtada ah, xawaarihiisa iyo hal-abuurkiisa ayaa ka dhigay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan ee xulka Faransiiska. Wuxuu goolal iyo caawin muhiim ah ka geystay kulamo waaweyn, isagoo si weyn uga qayb qaatay guulaha Faransiiska. Qaab ciyaareedkiisa heerka sare ee naadiga iyo xulka ayaa sii xoojiyay sumcadiisa, kana dhigay mid ka mid ah musharaxiinta ugu waaweyn ee Ballon d'Or. Tirikoobyadii cadeeyay heerkiisa. Tirikoobyada xilli ciyaareedka ayaa si cad u muujiyay heerka sare ee Ousmane Dembele. Wuxuu ku dhameystay xilli ciyaareedka goolal iyo caawino badan, isagoo ka mid noqday ciyaartoyda ugu saameynta badnayd Yurub. Sidoo kale wuxuu hormuud ka ahaa dhanka dribbling-ka iyo abuurista fursadaha, taas oo ka dhigtay mid si weyn uu uga dhex muuqdo xidigaha kale. Tirikoobyadan cajiibka ah ayaa xoojiyay dooda ah inuu ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiicnayd xilli ciyaareedka, isla markaana si buuxda ugu qalma Ballon d'Or. Habeenkii taariikhiga ahaa iyo riyadii rumowday. Habeenkii xafladda Ballon d'Or ee Paris, riyadii caruurnimo ee Ousmane Dembele ayaa rumowday markii magaciisa loogu dhawaaqay guuleystaha abaalmarinta ugu weyn ee kubadda cagta. Isagoo masraxa kor u fuulay si uu u gadoomo kubadda dahabka ah, wuxuu u mahadceliyay qoyskiisa, tababarayaashiisa, dhakhaatiirtiisa iyo taageerayaashii garab istaagay intii uu wajahayay dhaawacyada iyo caqabadaha. Habeenkaas wuxuu astaan u noqday dhammaadka safar dheer oo ay ka buuxeen dadaal iyo adkaysi, kuna dhammaaday guushii ugu weyneyd ee ciyaaryahan kubadda cagta ahi hiigsan karo. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doonno muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.